xafladdan oo si heersaraa loo soo agaasimay kana dhacday xafiiska maamulka ee gobolka Daadmareedh ee magaalada Oodweyne ayaa ujeedadeedu ahayd sidii xilka loogu wareejin lahaa xogayaha fulinta ee cusub ee gobolka Daadmareedh ee dhowaan lasoo magacaabay. Waxaana munaasabaddan xil wareejinta ka soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareedh, isuduwayaasha laamaha wasaaradaha dowladda, mas'uuliyiin ka tirsan xisbul xaakimka wadani ee gobolka, madax dhaqameed bahda shaqaalaha gobolka, haween iyo mudan iyo marti sharaf kale oo tiro badan. Waxaana ugu horreyntii halkaas hadallo kooban ka soo jeediyey xogayaha cusub ee fulinta ee gobolka Daadmareedh Cabdinajax Kayse Jaamac, kaasoo ka hadlay aragtidiisa shaqo, himilooyinkiisa uu damacsan yahay iyo sida ay ugu go'an tahay inuu si daacad ah ugu adeego bulshadiisa. xilku waa meerto maalinba qof baa jooga, daraa toole qof baa joogay, shalay toole khadar baa joogay, maanta anigaa imi, berri toolena qof kalaa imanaya. balse muhiimaddu waxa weeye in qofka jooga uu ummadda uga tago dhaxal iyo wax lagu xasuusto. insha allah aniga dabaday waxaan rajeynayaa inaan idinka tago waxqabad muuqda. waxaan si dhab ah u aaminsanahay in horumarka gobolku uu ku iman karo oo keliya wada shaqayn dhab ah iyo is-aaminaad dhex marta dhammaan mas-uuliyiinta heer gobol, heer degmo iyo sidoo kale hay-adaha kala duwan ee dawliga. geestooda madax dhaqameed, isuduwayaal iyo marti sharaf kale oo tiro badan oo halkaas ka hadlay ayaa halkaas ka soo jeediyey hadallo isugu jira dardaaran, duco iyo dhiirigelin, iyagoona halkaas si kaliya laaba ugu soo dhoweeyey xilka mas-uulkan cusub ee dhowaan lasoo magacaabay. Cabdinajax Kayse Jaamac waxaan leeyahay horta marka hore xogaya soo dhawow. xogayii hore waxaanu leenahay waa sii sagooteynaa, waxaanu leenahay ilaahay ha ku geeyo meel khayr qabta. xogayaha cusubna waanu soo dhaweynaynaa. xogayaha cusub ee gobolka waxaanu leenahay xogaya ku soo dhawow. gobol shaqo u baahan, gobol hawl u baahan, gobol aan fadhi iyo nasasho oolin, gobol u baahan gobollada kale in la soo gaadhsiiyo runtii. iminka intaynu saa ugu duubanahay wasaaradaha iyo inta shaqada le aynu ku dhaqaaqno dadweynahana aynu u dirra meeshoodii. xogayaha cusub ee gobolkii lasoo magacaabayna waa soo dhaweynaynaa. xogayihii horena waa u ducaynaynaa oo ilaahay waxaan uga baryaynaa halkaa iyo meel khayr qabta inuu ilaahay geeyo maan ugu ducaynaynaa. waxaan leenahay waa kuu ducaynaynaa, waa ku soo dhaweynaa, waxaan ku leeyahay ilaahay xilkaa kugu asturo. soo dhow baanu ku leenahay. xogayihii hore isagana waa u ducaynaynaa. xogayaha cusubna waxaan leenahay xoogaya soo dhawow, waan ku garab taaganahay. haddaanu nahay weliba bahda shaqaalaha gobolka aad baan ku garab taagan, si wacanna waan kula shaqayn doonaa insha allah. Cabdinajax Kayse Jaamac aad baan u soo dhaweynayaa. waxaan leeyahay ku soo dhawow gobolkaagii, ku soo dhawow gacmo furan, ku soo dhawow xisbigaagii oo kula shaqaynaya dhammaan gobolka oo dhan wuu ku soo dhaweynayaa baan leeyahay. anigu xogayaha cusub waxaan siinayaa un hal dardaaran, halkaa dardaaran oo ah in uu shaqada u wado sidii uu wadi jiray xogayihii hore gobolka. macno badan sameyn mayso in nina la magacaabo midna la diro, macno badan male. laakiin waxa macno sameynaya war maxaa meesha loo yimi. muxuu ahaa Cabdinajax Kayse Jaamacna waxaan leeyahay waa ku soo dhaweynaynaa, waana ku ducaynaynaa, waana kula dardaarmaynaa. ilaahayna xilka u fududeeyo. xogayaheena yaraa isna gobolka ahaa ee bedelayna kaana ilaahay meel wanaagsan mariyo khayr allah siiyo, in badan buu soo shaqeeyey. isagana waanu ducaynaynaa in ilaahay meesha meel ka sarreysa geeyo. ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareedh Maxamed Tayyib oo isaguna munaasabadda ka hadlay ayaa si rasmi ah u shaaciyey xil wareejintan, isaguna si weyn ugula dardaarmay mas-uulkan cusub inuu xilkiisa u guto si hufan, isla markaasna uu ugu adeego bulshadiisa si ay daacad iyo karti ku dheehan tahay. xogayaha cusubna Cabdinajaxna isagana waan soo dhaweynaynaa. saan khadar bawla shaqayn jirnay si ka wanaagsan baan loo soo shaqayn doonaa. dhammaantiin waad mahadsantihiin. mid kalena waxaan ku darayaa gobolka in badan bay wadayaal yidhaaheen muxuu ahaa horumar baa ka maqanoo waa in creative lala yimaado iyo initiative wax lagu horumarinayo. kolley imaka in xukuumad horumarkiina muxuu ahaa qayb ka ahoo inta ugu badan wadana way timi. annaguna waxa hadhay intii dadweynahana inaanu muxuu ahaa asaasno ay ugu horeyso muxuu ahaa guddida horumarinta gobolka. waan ka shaqayn doonaa insha allah. idinkuna inaad nagala shaqaysaan iyo rajaynayna dhakhaatiirta Dr. Maxamed iyo muxuu ahaa iskureer burcada ahayn markii hore si gobolka ula tartamo gobollada kale aad tidhaahdaan inta badan uu ka hadhay. ugu dambeyntiina gudoomiye ku-xigeenka gobolka Daadmareedh ayaa si rasmi ah xilka ugu wareejiyey xogayaha cusub ee fulinta gobolka Daadmareedh. Sayid Maxamed Cumar, Sayid Darwiish, warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland, magaalada Oodweyne.